dhinaca kale haddii aynu eegno ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu booqday guriga cusub ee xasan sheekh maxamuud ee madaxtooyada Soomaaliya isagoo safar dibadda ah ka yimid maalmihii ugu dambeeyayna ku sugnaa isutaga Imaaraadka Carabta. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa lagu tilmaamay booqashadiisa inay ahayd mid salka ku haysay salaan iyo bogaadin uu u jeedinayay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xilka si rasmi ah ula wareegay galinkii hore ee maanta. waxaa labadooduba loo arkaa inay ka wada hadleen arrimo muhiim ah oo ku saabsan siyaasadda, gaar ahaanna wixii uu kala soo kulmay dhinaca Imaaraadka Carabta. aaska hogaamiyihii Imaaraadka Carabta ee geeriyooday ayuu ka qayb galay, sidoo kalena waxaa barbar socday kulamo duceedyo uu la yeelanayay mas-uuliyiin muhiim ah oo ka tirsan Imaaraadka Carabta. rooble wuxuu kaalin weyn ka qaatay soo dhisidda xasan sheekh maxamuud, waxaana loo badinayaa in abaalmarin xooggan uu ka heli doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud, maadaama kaalin xooggan uu ku lahaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble in ninkan uu xafiiska yimaado. rooble tan iyo markii uu ku guuleystay hirgelinta doorashooyinka waxaa ka muuqata farxad aad u xooggan, waxaana sidoo kale dadka siyaasadda akhriya ay leeyihiin rooble wuxuu haystaa fursad siyaasadeed aad u xooggan oo ilaa iyo 2026 uu ku heli karo door wanaagsan oo xagga siyaasadda ah. waa tii horey uu u yiri, anigu xilligan diyaar u mihi inaan isa soo sharaxo, laakiin dib dambe ayaan ka dhigan doonaa mustaqbalka dhow wixii is-sharaxaad ah. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xasan sheekh maxamuud waxay kasii wada shaqayn karaan howlo muhiim ah. waxaa suuragal ah ra-iisul wasaaraha in xilal kale loo magacaabo sida safiir iyo waxyaabaha la midka ah, waxaana taasi ay ku dhiirigelinaysaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble inuu sii qaado dhabbihii siyaasadda uu ku sii raadin lahaa.